gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku xunnahay oo mar walba ragga Soomaaliyeed ay nooga soo cabtaan oo mar walba ninka niyadiisa sii jeedisa maxaa kamid ah nadaafadii gabar kasta markay banaanka taagan tahay oo aan la qabin oo gabar ay tahay oo calaf doon ay tahay gabar ka qurux badan ma leh حتى مالك أي يعني بحث إيميل آديس وصوت بالعارس تحول هاي بريميل أصح كان رئيسي because she wanted to become beautiful إنها قروح بدنا تعرفها لكن مرك اللي جورسدو هل ده مالك هذا شو ورنا شبكة مالك كو لو أور بالله ما ولع الصاقله that is the end of the life قبل الصوماليين إن استرترتو نين كان مرة بأي سيارة تعرسها هذا يكوه واسكودا ماتا هذين كلا أرسا أوجودن بس تضبط أي كبحث حال إذا كربا مركا وحيابها dadka qalbigooda soo jiita indhaha dadka maxaa soo jiita quruxda ninka ay hada u hadiyaysid quruxdaada uma leen ma inuu meel kale ka fiirinayo soo qurxin ninkaaga nadaafadu waa qayb kamid ah nolosha an-nadaafatu nisfu al-iimaan nadaafadu maxay kamid tahay iimaanka barkiisa lagu dhahay fiiri nadaafadu marka iimaanka barkiisa kamid noqoto guurkaagi wuxuu kaamilay diintaadii maxaa u guursatay marka hadaad isku qurxineen asaga waxa isku qurxinaa oo kaliya maalmihi xaflada ay jiraan aroos baa jira asalkaas fadhiya inta la soo martid baa la barqaas wuxuu ku leeyahay xataa way barteen nimanka Soomaaliyeed maalku ku arkado qurux badan wuxuu ku leeyahay maanta maxaa jira ma martaqaad baa jira soma wallahi alcadiim way ku weydiinayaan maanta maxaa jira ku leeyahay ma dad baa noo soo socda that means asaga priority ma siinba isku ma qurxin priority waxa siisay ummadii kala banaanka hadaba yaa way qofka alla noo shahay adiga ma soo ogtahay inay jiraan gabdho badan ama dumar badan oo jaanis u waayay inay guursadaan ama ilaahay baa ugu talagalin ama shaqo iyo waqti bay kulmisay waqtigeedii ama wax family problem baa jirta ma guursan karto ama way xanuunsan tahay ma ilaahay baa u qadarin adiga markuu ilaahay gift ku siiyay inaad guursatid oo ilaahay ku qoray inaad guursatid oo calafkaaga uu ku imaaday maxaa ku diiday calafkaaga qalbigiisa inaad degto oo soo jiidatid maxaa isla mid dhigaysaa yani qof aan waxba haysan ninkaaga mar walba isku qurxin ninka markuu yimaado maxaa sameeynaa for example dhaqamada Soomaalida waxa kamid ah dad baa ku iimaanaya mar walba qolka ninkaaga ha ka duwanaado qolalka kale billahi alaykum sidoo kale ninkaaga u duceey mar walba asagana ha ku duceeyo isu duceeyo mar walba marka la isu duceynayo ma ahan markay balaayo timaado in la isu duceeyo markii biilku yaraado oo balaayo dhacdo balaayo gabadha ilaahay risaha qadar rabbi oo adaa baxsha soma laakiin waxa la idinka rabaa seeninkaga yani power see ku yeelanaya awood see ku yeelanaya hadaad u duceyn markasta maqashii markuu baxay adoo shaatiga u xiraya shaatiyaashu ma xirnaa horta adoo shaatiga u xiraya adoo shaatiga u xiraya maqashii ninkaaga maxaa ku dhahaysaa ilaahay ka soo nabad celiyo ilaahay waxaan talaabo kasta aad qaadaysid ilaahay ka dhiga talaabo khayr badan soo noqo adoo nabada you see shaqada Allah ku fududeeyo waa runteed waa u duceysa shaqada Allah ku fududeeyo you see because of waa maqashinaysa xaalada waliba asaga waa maqashinaysa waxa leedahay ilaahu ninkayga ee xifdo rabbi raxmaan waa ogtaasa u jeclaa kama maarmeen